waxaa sharaf noo ah maantay inaan halkaan isugu nimaado annagoo xaqiijinayna ama ka marqaati dhigayna shaqooyinkii la qabtay muddadii koobnayd ee la soo dhaafay runtii waxqabadyo badan oo la fuliyey ayay qayb ka tahay xarig jarka goobtan la yidhaahdo ex-baarlamaan laakiin hadda loo bixiyey barxadda midnimada. barxaddan midnimada waa mid ka mid ah waxyaabaha burburay ee dib loo soo dhisay kuwaasoo qaarna la xarig jaray qaar badanna ay noo dhiman yihiin. barxadda midnimada oo ah beer ay ku nasan doonaan dadweynaha gobolka Banaadir iyo sidoo kalena dasxiis u iman doonaan dadka danaynaya inay arkaan 60kii daartii midnimada halkay ahayd soo booqdaan indhahooda ku arkaan maanta waa inoo dhammaystirantay alxamdulilaahi rabbil caalamiin waa inaga daah furnay si rasmi ah oo furnay waxaan soo marmarnay fadhiyada kala duwan oo ina xasuusinaya mataanaynta koonfur iyo waqooyi iyo magaalooyinkii koonfur iyo waqooyi iyo mid waliba mid mataane ku tahay oo lagu ballamayo gabilay dhuusamareeb muqdisho hargeysa marka waxay tusaysaa 7 magaalood ugu yaraan oo koonfur iyo waqooyi ay dadku isugu imanayaan inay leeyihiin halkaasaan fadhiyaa waa xasuusin daayarteen iyo bulshooyinka la xasuusinayo in midowgaasi dhacay midnahay ummadda Soomaaliyeed isu hilowday wada jir tahay 60 sano kadibna dib isugu soo hiloobayso wada hadallo midho dhal ah oo la isugu keenayo midnimadii dib loogu abqaalayo loogu yagilayo loo meel marinayo ay hadda socdaan.